أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maamulka iyo macallimiinta sharafta leh iskuulka imaaraadka ardayda qiimaha iyo qadarinta mudan ee loo xaflaynayo marti sharafka kala duwan ee ka soo qayb galay waalidiinta dhammaantiin ku soo dhawaada xafladda iskuulka imaaraadka. ugu horreyn xafladdan waxaynu ku iba furan doonaa haddii eebba ogolaado aayadda qur-aanka kariimka waxaan ku soo dhaweynayaa sida ardayda iskuulka imaaraadka عبد الغني قرآن الإسماء هي آيات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صلى الله عليه إلهي هكذا آيات القرآن واحد جاي من قرآن واحد أخيه واحد جلسته واحد وقت من قرآن الكريم إلهي هو كلمة دمان ارتشرف في نجارة قيب قلي أو وجوه الرئيو قدومية جامعة بدر مبارك إبراهيم يو قدومية دلدا وحبرشة هيئة جيس كأفريقيا محمد علمي سمطر يكو حجين كيسة آدم حاجي محمد إدريس دمان والدين ته يا معلمين ته يا أرضيدا يعني كسو غيب كشيء هذا يوم هتسنتين يعني مهدنقا كبعدي كل حفلتني وحفلتي تكسيقو أو أينو يريني أما كوسابسن حفلة أي قبصرين أرضيدي بحضي fasalka sideedaad iyo fasalka form 3ga oo qolana qaybta secondary-ga ay u gudbeen qolana ay maaragtay jaamacadaha u gudbeen marka xafladdu intaas ay kooban tahay ugu horeyn ardayda xafladda yani runtii qaban qaabsaday doorka lixaad kale iyaguna maaragtay ka qaatay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa وانا نويدين مباركين حفلتنا وحن لنا إلهي سبحانه وتعالى أقوي وحي أي برتين يعني انتفاع صلاة يعني وحوي وعبسي بكريو يوم مركتي كلغن كذا إلهي سبحانه وتعالى هيدي كيالو كل يعني واحد بضن أو مركتي ساسسي قلي مينو لكن وحن دلنا هي آذي يوم ما تنتين حفلتنا وانا ندي سيسه بوتينا يعني قليه كبحي يعني ثالثك وعويه جامعدي ayaa la idin diraya yani waxa la idin leeyahay runtii da wixii aad barateen halkii ka sii wada iyo dadaalkeenu maaragtay isku ogeyn yani kuwii sideedaadka ka baxayna horena way soo dhaweynay mar labaadna maaragtay runtii waan soo dhaweynaynaa kaliya waxaan jecelahay inaan halkan anigu dhex gashado si xafladdu inoogu soo ururto ardaydii kaalmaha hore maaragtay ku soo baxday imtixaankii ay dalladda geeska afrika qaaday yani liiska hore ku jiray ama 15kii arday ee ugu horreeyay iyo 3 arday ku lahayn markaa 3dii arday ayaanu runtii maaragtay aan u yeerayaa yani 3da arday يعني عبد الله يا محمد حامود يا محمد أحمد يعني رنتي إني سود وادان وعكرو أنا بدوية جامعة يا بدوية دلنا يجنا ويا ريا إني جوائز تانية بدوسية هدي لها كده waxaynu guddoonsiinaynaa 3 kombiyuutar oo laabtobyo ah ayaynu maaragtay guddoonsiinaynaa yani weliba waxa weeye iyaga un kuma ege yani qolyaha kale soo socda imtixaamaadku sugayana waxaan leenahay dee la kala dheeree orodna maaha
وكمبيوتر كي وحا لغو برانيي وحا ugu sareeyay Cabdillaahi Uthmaan Xuseen kulli way isku jaayisadun Cabdallaah soo dhawaado waxa ku xigay Maxamed Xaamud waxa ku xigay Maxamed Axmed Mataan ما شاء الله تبارك الله ولنهاين يعني انت اسان نغدي في جلينا انت اسيان كسو ورنيا aad ku mahadsan cid ka soo qayb gashay dhamaantii iyo wuxuu la oran jiray iyo habeen kasta loo soo geli jiray waa wada xasuustaa dhamaantood aad ku mahadsan yahay sidoo kale anaga waxaan fadhiyaa professor Mawari Ibrahim Aar oo ah gudoomiyaha jaamacadda Badr oo jaamacadda Badr dhiganayay isaguna saameyn qiimo badan ugu lahaa oo ku lahaa macallimiinta ugu qiimaha badnay oo macallimiintu isku jiraan macallimku markuu wax dhigayo inuu ardayga saameyn ku yeesho saameyn mustaqbalka dhow iyo fog labadaba oo qofka ardayga oo ay noqon karto wuxuu sii xasuusto mustaqbalkiisa waxbarashada waxa ugu qiimo badan oo ardaygu ugu jecel yahay xilliyada uu ku jiro dugsiyada dhexe sare iyo wixii la mid ah marka uu jaamacadda loo diyaargaroobo waxaa laga yaabaa in dadka badidoodu ay taagaan in meelaha ku hadhaan laakiin waxbarasho waxay ugu qiimo badan tahay xilliyadan aad baraysaan ay ku jirtaan waxaan kelimaad ku soo dhaweeyaa ayaa kelmad ku soo dhaweeyaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مقولها دول سكوت الإمارات فضل مجلة الهرقيسة وعن هنتي سكارة مهنقية مقولها دولسية محمد إيمان أو هنتي كرتيدي سي أقوتي سمان تسوق أرسيي سكول كمال آذو ونأكسن أو كبتشر سكول هذا مركز سومان الله مركز بوهرين وذين بلغين وسكول كبتوا سكول هذا كلا inuu dhaqankii islaamka akhlaaqdii wanaagsaneed culumtii maadiga ahayd dhammaan waxaasoo dhan runtii koobsaday runtii waxaan rabaa kelmadeena kooban maadaama ardayda halkan jooga iskugu jiraan arday qaara aydka ay dhameeyeen qaarna runtii iskuulkiiba hadda ay dhameeyeen kelmadeena kooban oo mustaqbalka ku saabsan mustaqbalka marka laga sheekaynayo inta badan waxaad moodaa aad uma eegno bal inta badan warwar baynu ku eegnaa laakiinse mustaqbalka marka laga hadlayo waxa ugu muhiimsan qofku inuu xadido hadafku uu leeyahay waa mabda ugu muhiimsan ee qofkii raba inuu meel u gaadho meesha doonta ha ahaatee waa inuu hadaf yeeshaa idinku maanta waxaad taagantihiin meelihii ugu muhiimsanaa ee ahayd inaad yeelataan ahdaaf xadidan oo caddaynaya bartaad u socotaan iyo halka aad tegaysaan waxaa runtii aad loo sheegaa qiso yar oo nin ingiriisku ka sheekeeyey wuxuu maalimaha ka mid ah ayaa diyaarad baa waxa fuulay nin carab ah oo ku takhasusay culumta ciyaalka iyo carruurta ku takhasusay ayaa diyaarad isagoo safar u socda diyaaradda mugsaa u fuulay ayaa dhinaca kale waxa kursiga la fadhiya nin ingiriisa ninkii ingiriiskaabaa ku yidhi way iswaraysteen ninkii ingiriiskaabaa ku yidhi maxaad ka shaqaysaa kii ingiriiskaabaa ku yidhi waxaan ka shaqeeyaa culumta ciyaalka iyo howlaha ku saabsan tarbiyadooda ka shaqeeya ninkii ingiriiskaabaa yidhi haddaba dad arrimaha ka shaqayso qiseero aniga igu dhacday ayaa kuu sheegaya wuxuu waxaa jirta buu yidhi laba yaroo dhalinyaro ciyaara dhalay buu yidhi labadii yareeraa aan dhalay ayaan ugu taagheli waaya waxbarashadii primary educationka ayay dhiganayeen waxbarashadii bay istaagsaag noqdeen waxay noqdeen inaanay waxbarashadii danaynayn aanay u jeedin markaa wuxuu yidhi markaan xaaladoodii arkay ayaan maalin ku mida la sheekaystay waxaan ku yidhaa bal maxaad haysaysaa labadaydii yaraaba waxaan ogaaday inay aad u jecel yihiin baabuurta iyo wixii ku tacalluqa arrimahaas oy baabuurta aad uga helaan waxaa sameeyey labadaydii yaraaba kaxay waxaan geeyey macdar ku yaala magaalada ingiriiska dalka ingiriiska
macdarkii markaasaa u dhexgeliyeyba waxaan ku yidhi ninkii macdarka lahaa oo niyo laba baabuur oo weliba noocaasa ayaan rabaa inaan carruurtan weydiiyo marka mana tusi kartaa wuxuu waana tusi karaayo baabuurtii mana tusayo labadii yareeraa ayaan idhi mid kastoo bal baabuurkaagii soo arag mid kastaa baabuurkiisii buu fuulay shookaantii buu waday u warwareejiyey markay ka daareen ayaan ka soo baxnay ninkii macdarka haysta baan ku yidhi imsaad siinaysaa ninkii macdarka haysta u fahmay buu yidhi inaanan u jeedin inaan baabuurka iibsado laakiinse aan u jeedo carruurtan inaan dhiirigeliyo markaasuu yidhi waxaan siinaynaa qiimuhu waa intaas qiimihii markuu noo sheegay ayaan iska soo baxnay gurigii baan ku soo noqon gurigii markaan ku soo noqonay ayaa ku yaraayo dad dawaqsan oo faraxsan oo isku dhex yaacsan oo baabuurku ka sheekeynaya maanta leh ayaan isu nimid markaasaan kuri dhegaysta baabuurka qiimihiisi ma soo aragteen haa waxaan haddaba waxaan u baahannahay qiimaha baabuurka shaqada inoo goynaysa inaan ogaano si aynu ugu shaqayso lacag ugu helo maalintii labaad baan baxnay waxaanu tagnay maktabad ku taala magaalada maktabadii baan fadhiisanay labadii yaraa waxay markaa baadhayaan bal shaqada haddii ay galaan u goynaysa lacagtii baabuurta shaqadii bay heleen shaqadii markay arkeen noocay tahay ayaa waxaan ku yidhi waxaa sii baadhaan bal shaqadaasi dee shahaadadeeday ka baahan tahay markaasay waxay ogaadeen shahaadooyin gaar inay u baahan yihiin shahaadooyinkii marka ogaanba waxaan ku yidhi waxaa sii baadhaan jaamacadaha shahaadooyinkaa bixiya jaamacadihii bay baadheen waxay ogaadeen jaamacadaha ugu waaweyn dalku inay shahaadooyinka noocaasa bixiyaan waxaa ku yidhi sii baadho jaamacadkaasi maxaydii ka baahan yihiin jaamacadii bay sii baadheen waxay yidhahdeen waxay ogaadeen u baahan yihiin shahaado secondary schoola oo maarkis aad u fiican lagu baasan intaa markay ogaadeen ayaan soo noqonay buu yidhi gurigii markaan ku soo noqonay ayaa waxaa ku dhegaysta baabuurta jeclaydeen waad soo ogaateen shaqooyinkaad ku helaysaan waad soo ogaateen jaamacaadka shahaadooyinka idinka baahan yihiin waad soo ogaateen jaamacaadka shahaadooyinkaa bixiya waad soo ogaateen jaamacaadkaasi maarkiska iyo iskuulka dugsiyada u baahan waad soo ogaateen maxaa maanta markaa laydinka rabaa waxay yidhahdeen shahaadooyinka ay naga rabaan jaamacaadku secondary schoolka waa inaan a plus ku baasnaa maanta gala bilow waa dadaalaynaa wuxuuna kuwayga yidharaa maalintii laga biloabo dadaal bay galeen habeenkii dhanan waxbay akhrisanaya wuxuu yidhi iskuulkii way dhammaysteen secondary schoolkii markis fiican bay kaga baxeen jaamacadaha laftigoodii bay galeen ay markaa berigaa qorsheeyeen jaamacadihii markis fiican bay kaga galeen maanta waxay yihiin buu yidhi maanta mid ka mid wuxuu yidhi wuxuu maamulo ka yahay hudheelada ugu waaweyn dalka ingiriiska mid ka mid ah ayuu maamulo ka yahay mid kalena kambani weyn oo shirkad ku tala bariga afrika ayuu isna maamulo ka yahay waxaan weydiiyey buu ninka carabka waxaan weydiiyey dee baabuurtii beriga ah ilaahay waan iibsan horta ma iibsadeen wuxuu yidhi warda markay lacagtii heleen qaar kaleba sii jeclaadeen oo imika runtii qorshahoodii kaleena iibsanayaan waxaan ula jeedaa maanta haddii aanad xadidin hadafka halkaad u socoto bartaad u socotay haddaanad xadidin waxaad noqonaysaa doonida badal intay iska gashay meel alla meel socota aan garanay shookaantu lahayo kolba meel ku dhacay ma science ma engineering ma accounting ma finance isweydii haddii aad jeceshahay inaad xafiis ka shaqayso oo kursi ku fadhiisato oo manager aad noqoto dee caafimaad ha geli dee caafimaadka manager ku noqon maysid haddii aad jeceshahay inaad biraha ka shaqayso iyo mishiinada arrimaha ku saabsan dee finance ha geli engineer baad gelaysaa haddaad bartay inaad rabto inaad beeraha falato ood beer ka shaqaysana dee accounting ha gelina beeraha kale maanta mashaalkan haysta waxaa ka mid ah ardayba wuxuu rabaa xafiis inuu fadhiisto habeen dharaaro manager noqdo engineering buu gelaya engineering waa technical gacanta laga qabanaya maaha shaqo xafiis marka waxaan leeyahay maanta xadida halkaad u socotaa aid baad dhammaysatay foom baad gelaysaa isku day maanta inaad awoodda saarto fiilka mustaqbalka gelaysa wuxuu kaaga baahan yahay haddaad rabto caafimaad inaad gasho biology chemistry waa inaad cabtaa haddii kale isku geli haddaad rabto engineering inaad gasho waa inaad xisaab iyo physics meel iska dhigtaa haddaad rabto inaad business iyo economics iyo accounting aad barato waa inaad basic iyo xisaabtan si fiican u taqaanaa english aad wax kaaga furaya marka runtii waxaan leeyahay mustaqbalkaaga maanta xadid mar kastana niyadda geli adduunkan loogu jeedo keliya in la shaqaysto oo lacag la helo adduunka waxaa loo jeedaa aakhiro inaad kugu xidho markaa wax aakhiro kugu xidhaya
وين البركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إبراهيم aad iyo aad u mahadsan yahay waxaan jeclahay maamulka iskuulka imaaraadka iyo ardaydaba inay fasaxaan si sharaf leh u sii sabootiyaan gudoomiyaha jaamacadda Badar. intaa wixii ka dambeeya waxaan kelmad siin doonaa oo doorkoodii bannaan yahay mid ka mid ah macallimiintiina waa macallin maxamuud samatar waxaa la sheegay inuu akhriyi doono gabay insha allah soo dhaweyn wanaagsan waa caaqilkiiba horta magacayga saxaya waxaa maxamuud cagfaa على كل صاحب أنا بقولها لكن لو هو استوى البديو هو قرار انتشرت الوقت بتاع وهو اليوم أنا قاعد في صاحب الدنيا تعاد بدرة الدنيا أيضا يسوق إنه وسط قرن أفريقيا محمد العلمي عملها سكون كايا محمد الإمام علمينته يقولون صاحبه يقول هان أرضية ويقولون ربطي احترام يشرف يتحقرين مضان عن السلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوالي وحكومة مع أقل كايغو ورتينا أفسار بالغيكتا أردت هذا السيدنا أفاف بالغيكتا ساوي دكتور أفافنا يا وريعي قبل وآخر يوم طارون قبيامي لكن أفريد أن أسكير طيب مركاتي حروك فوضنا وأفر يوم قبل وين هاي أيام اللي هو ذاك الدورة كل إن بعض خاصة سيف عمل شكرا لنا لكن سكوت بان اللي هو ذاك الدورة تحد واحد كورنا ويسا سيرة كوبان واحد يصوب النجيسان واقعاً إنه كنت إنه يسكت وقت جاي يسبدلك يوم معلم بين وقت بيسبدله حاجة تبغى وحوجاته فوق الصالين إنسان وقف هذول إنه هرمر يوحوي يعني وتبين قالوا إنه بهانت أسباب يوحوي يعني تلاقي يفعل ولا يمادو وقت وأنا وجد تحدث سكوت مي خلنا مني يوحنا كبرنا هذا يسوي ركوبه وحدين ودائمك guud ahaan deegaamada ay degto Soomaalidu gaar ahaan hadee raq waa ku rageed baleelay Soomaaliland hadaynu inagu nahay waxa yar moodaa waxoogaa inay yar jiraan beddelooyin badan inta badanna aad maqlayso dardarwarin ama dayrin badan oo dhinacyo badan oo nolosha laga muujinayo tusaale ahaan waa kan tacliin badan u fadhinaa in badan waxaad maqashaa tacliinta Soomaaliland تيجي لوجا بحنا يهركي لوجا بحنا ما شوفت رنتيو عاد بيو هوسيسا واحد مقشان معمول حمو بهسم بوضع كتيرته واحد مقشان تهريب يعمل الآن بوضع كتيرته واحد مقشان قبيلات يكره الطرق وحق الشدة باترته يفرق سنجل سايد يدعي عكستون ولا شو لقاه إن بدن لقاه إنه وحكم بدن نباتويكا رنتي نباتويكا تفريم ما إنه وويتشان لكن waxaan u baahanahay in badan iyaga inaan lagu celcelinay xalkood in la keeno marka waan ku dheeraaday anagoo mar dhalinyaro iska sheekaysanayna oo dhalinyaro meelahay ku shaahday waxoogaa isugu timaado ayaa in badan laga sheekeeyay dhibaatooyinka jira annagu kale waa ku jira oo dadka dadka sheekeynayo kama madax banaani in badan markii aan ka sheekeyno baa maalintii dambe nin ku ilaahay saaxiibna horta hebel dhibaato ma ka sheekeynaa waddanka qabiilad baa ka jirta amal la'aan baa ka jirta وتهذيب باكتنا مع الحما كتيرتا والسحر بر باكتنا روش عندك مرسا وحبرش متر فكر متر وحمتنا الصباح قرنا وحاصل من أي ترين محاحة لأن ما يسمع الله كم ما الله أي ترى الله هذا ترى على مركع أهل الله عالو وايو الله ما رو وايو هذا ترى الرغوات نورا والسيف كلون غطون إنك لك حياة خبرتها بتوتر السؤال كتير هذا
maamada Soomaaliya badan ku maamada Briliyo waanu waxaan u maleynayaa maanta xalku inuu yahay maamada ay Soomaalidu oran jirtay nin walba nafta nabi umada oo macnaheedu ay tahay marka arrintan loo caal waayo loo maaro waayo inuu walba sidii isleeyahay oo ku badbaadaysaa oo sameeyo marka waxoogaa dhiirigelin baa sila tusiyo aniga saaxiibadii si guud ee bulshadeena waxaan waqtigu isbedelayo marna la wanaagsayo Soomaaliya barwaaqo lagu jiro marna waxoogaa dhibaato lagu yar jiro marna waxa weeyaan dee waqtigu isdaba socdo oo isbedelayo oo habeen iyo maalin xagga dambena waxaan ku yara tusaaleynayaa saan loogu qadan maadaama waqtigu uu isbedelayo waqtigu la sugay oo loola markuu wanaagsanaadana dee waa inala wanaagsanaanaya markuu xumaadana waa nasiibkeen laakiin aan u baahanay asbaab iyo waxa weeyaan inaan waqtigu markuu wanaagsan yahay ka faa'iideysano markuu xumaadana xalkiisa aan keeno waxba hadalkeena isku daalina waxay leedahay maansadu hada maansadu waa taanaan gelin hilimadeedii in dhawooyinka waa taan ka tegey hay iyo ugada ma hansanin maansooyinkii hibadu saarayna maanta uma helanayn inaan higaataayo wuxuu bay huraaqo qalbigu hibashadii waaye baanfudiyo caawo kala heer ka marayay marka macnaheedu waxa weeye warba jeedin degaba waa taan ka dhex baxo xaq waxbarashada siga baydhay laakiin bal arrimahan uma ay geer kalifayo waxoogaa baan isku yartayo hawlaha adduunka iyo waqtigu way sirteeyeen cirka hore dirka curtiyo geeda wada hawray hadhuun buuxa hayb oo dhashiyo halabka dhulkeeda hadhacnimada haybtiyo tolkoo habu taxaashaya iyo hadhacnimada haybtiyo tolkoo habu taxaashaya iyo horac kaliil iyo abaab lagu hurushoobay oo halasa awgii hanfiga haadu kici weyday waa geed hadhkiisoo waqtigu kelinba waa heer يعني لبدا أساس حقوق وقته مربى واسي وشلت له أبعاد بين كسر بحرية وحوي يعني جبت هذا ويده ما أنتنا كوكي بين كسر بحرية وقواقع مركب وجد هالكيسو وقته كلم بواه أفرتابها بيابيات المكان كاسي هاي اللي يقوم بحاجة دي يقوم بوعري هذا الكلام ورانا يا عن هربوا هيكل سلاح هناني يا حرقات ذبل هيكل سلاح هناني يا حرقات ذبل أبوها هقال ملاحة هذه يوم السلطان هتقول كيسة هورين هيرلان أدو هيبين يهبل يهوس أدو يالله لجوهلين وهيب متكي كوجوحي كوبقون هيرايو وهيب متكي كوجوحي كوبقون هيرايو ودلور هقدر يبريه هو توتي وجد هركي سوق وقلنا بواه مربها واحد سيرة حاجة أنت كمان سؤال ده لأن لو رأيت أبتدي قبل رجع حاول برد حاصل حلايو وحوالي يقول الصومري كتب لنا كلاس اللي ماشي السوري اللي رأيت لي وبرجع ملاحها وسهل كيس اللي مبدلي اسمه وحوالي نكى قلت كذا صار بيرو بالمسؤول وياه وبقول نقول قاعد دور بودي ما كانت صار كم مرة سوق هذا وحلا وساس بيس معك تاني هنا اللي يشبه أفرتها بيانية هي المقاسي هي كيقوم بحر السلي هي جنب وعري هذا الكلام ورانا يعني هروين كيلا هيني أتون تدبر هروين كيلا هيني أتون همود البحاء هاي وعن هنادي يحرقت تدبر هو كان شيء مروه هذا من هي فلان عم سهرانك وبدأ هذا قبل تربى لجوها بقرباه أو لجوها رات بحط تربى لجوها رات بحط تربى لجوهم قواه كلهم بواحد هذا سبب كهراء إنك الصوت وحوارين المعكو تبتدي مرة وقت بسبدها كلهم بواحد هذا سبب كهراء انتهى لوي وقته كلم بوا هنا أبكى سنة تلو صاحب تري هابي لا وقت إلا ولا إنما ساس بدري سود بسر أفر تابها ويميه المقاسي هاي كي يقوم بحيث هي جمعوري هذا الكلام ورانا يعني هروب إنك سوى ولا هاتوك يوم وقت وكلم بهير شو هي شيء يبقى حوالي حتى ساعة سبدل لكن ما يرسك فردين هاي ما أنتوا سبدلنا وحوالي ونمعوا وبرواقة ما أنتوا في معنا وأنا سيد كم بمايا أسباب اللي نقول بهاي إنك سوى ولا هاتوك يوم وقت وكلم بهير شو هي شيء تدال يوم حلقوه هضمة هاي بسمع الكرة هنصر يوم حلقوه هضمة تمر الإعلام إن هذيك ستالقوه هضمة إن هذيك ستالقوه هضمة هذا كوي هذا يقولي ما لقوه هضمة هو اللي قرره هنوك يوم حلقوه هضمة هاد كنا بيجي عليه الصلاة والسلام وانتي هنوك يوم حلقوه هضمة هاد كنا بيجي نقول ده
gantaaliye ilaahaad ma kiciyeen tacabkiyo waxa lagu hodmaa hawlgal joogtaan waxaad maqasheen gantaalaha iskaga baqaada hurdo laguma keenin hadda nin hurda gantaaliye ilaahaad ma kiciyeen tacabkiyo waxa lagu hodmaa hawlgal joogtaan waxba hadal lama sugnaadee waxaan erar ku soo hor waxba yaan ku daadaan hadal lama sugnaado ee waxaan erar ku soo horshay hamigaagu iyo hoos u dhicin hiiliyaa jireen wadhan islaamay loo habeen loo wax kastoo jira waxa weeyaan deen iyo jab looma baahna waqti loo isbedelaya tixin intaas ay kaga dhantay aad waad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sideed dowlad ay maansadu ka kooban tahay tii ugu sarreysay oo ah boqorka maansada oo gabaya ayuu maxamuud inoo akhriyay waana gabay run ahaantii qiimo badan taariikhda soomaalida marka dib loo eego gabayaagii ugu weynaa ama kuwii ugu qiimaha badnaa mid ka mid ah cabdilaahi macalin dhoodaan allah u naxariistee isagoo ka warramaya qofka iyo wuxuu tirinaayo ayaa wuxuu yidhi dariiqi gabaygu kuma fiicno iyo waa darrooramiye waa deeq ilaahay baxsho waa deeq ilaahay baxsho darqi gabaygu kuma fiicna iyo waa darrooramiye waa deeq ilaahay baxsho lagu dadaala marka dirqi kuma fiicna gabaygu maxamed wuxuu akhriyay gabay qiimo badan caqalka markaa habalyaynu leenahay halkaa ka sii wad kelmad ayaan ku soo dhawaynayaa mid ka mida marti sharafta qiimaha badan ee inala joogtaa waa guddoomiyaha dalladda waxbarashada ee geeska afrika maxamed cilmi samatar aad baan u soo dhawaynaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب أيام هذا نمعوي كيساينان كوبي كريم حفلة أي جوجنا أي كمتهاي لو هاي وحوا نكسم مقاميد ويكلا قرح بديهين إلى هبين ما هدقينا سيرو كلتو وحيم ما هدقينا معمولكا معلمينتا يا مرتي شرفتك لدوان كسو قيب كشرفتي حفلة ما دوري كل هذا البدنين أن يلاحظوا أرضيدا وحنوهم بليين يا أرضيدا يا معمولكا يا معلمينتا يا والدين تنسبوا يا شيء أرضيدا ودوين كم النوضان أرضيدا يسكول كان وحنوهم بليين يا وناجا وحنوهم بليين يا هرمرك حقا قونتا وحنوهم بليين يا قروحدا يدين يا أخلاقدا يا قونتا كم وقتا أرضيدا رنتي وحلنا الناس معادن كمعادن الذهب والفضة بني آدم كسل كرتو كلا قيمة بدن تايبو كلا قيمة بدن يهي اسكولة اسكولة معها وحبرشة وحبرشة معها ماتا وحموقتا اسكولة يدلتا وكمل يهي اسكول كلي أو تلمانو يهي متي أو مقعدنا قوة ليوا دلتا runtii dadkay soo saartay iyo ummadda ay soo saartay iyo maxaan dhahdaa maamuladeeda kala duwan macallimiinteedu waxay yihiin ummadda ayay ka dhex muuqataa sida howlkayna fadhino dadka fadhiya bidhaantooda ay u muuqato aqoontu ay uga muuqato diintu ay ka muuqato akhlaaqdu ay ka muuqato ayay qarankana uga dhex muuqdaan marka hambali ayaan idin leeyahay iskuulka alimaaraat markasul imaaraat iyo cidda nasiib u yeelatay inay qayb ku yeelato hadday arday noqoto hadday macallin noqoto hadday maamul noqoto hadday xaafadda ku yaalla noqoto haddii magaalada ku yaalla noqoto haddii qaranka uu ka midka yahay iskuulkani uu ku yaallo ee somalilan ay noqoto hambali ayaan leeyahay haddaan ku soo dhowaado ardayda dhammaysatay fasalada sideedaad waynu u hambaliyeynaynaa qarnul ifriiq waa hambalyeynaysaa xafiiska imtixaanaadku si gaara ama xafiiska waxbarasho si gaara ayuu hambalyeynayaa kaalinta ay ka muujiyeen dadaalkii waxbarasho sidoo kaleeto fasalada dugsiga sare ee iyaguna dhammaystay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare dadaalkii ay sameeyeen hay-ad ahaan iyo xafiis ahaan iyo dalad ahaan waanu hambalyeynaynaa waxaynu leenahay dadaalka halkaa ka sii wada
wax la bixiyo oo ilaahay bixiyo toogu qaalisani waa akhlaaqda iyo diinta aqoonta maadiga ee aad barateen ilaahay cid walba uu siiyaa gaalkana uu siiyaa muslimkana uu siiyaa weliba iyaga ayaa hoggaan inoogu ah weliba ayaa hoggaan inoogu ah waqtigan xaadirka ah علومتا مادية iyo sayniska maanta hoggaan waxa inoogu ah iyaga ayaa hoggaan inoogu ah marka halka waxaad ka fahmaysaa maadaama aqoonta hoggaan maanta ay inoogu yihiin gaaladu waxay gaalo hoggaan ku noqotay in laga qiimo badan yahay badalka ka fahmi kartaa way nolosha adduunyadu waa tambareeri marka ay gaalka noloshiisuna waa adduunyada aqoonta ugu qiimaha badani waa aqoonta diinta oo akhriya adduunka ku anfacaysa in dalada hay'adda geeska Afrika ee waxbarashada qaybta waxbarashada iyo iskuulkani uu ka mid yahay way ka muuqataa inay yihiin iskuuladan iyo daladan iyo qaybteeda hay'adda iyo qaybteeda waxbarashadu mid isu dheelitiran dhinaca maadiga iyo dhinaca diiniga iskuuladani waxay soo saareen iskuulkani ka mid yahay ardaygii aynu rabnay ee ilaahay rabay ee qarankani rabay ee dalkani rabay ee dawladani rabtay waxa lagu barbaariyaa macallinkii weynaa tarbiyadiisii iyo aqoontiisii maadiyan wa diiniyan sallu calaa mustafa sallallahu alayhi wasallam macallinkii ugu weynaa ee adduunka soo maray wuxuu ahaa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam diintiisu waa diin ilaa iyo maanta gaaladu aqoonta ku duugan ee sayniska iyo xisaabta aanay irbad weli darin weeye wax fara badan oo ku duugan ay qireen waxaa la socotaan nebigeenu sallallahu alayhi wasallam intaasoo sannadood ka hor ayaa wuxuu inoo sheegay sistamka iyo silsiladda ilmaha uu maro markuu caloosha hooyadii ku jira ayuu inoo sheegay inuu 40 xinjir yahay inuu 40 candhuuf yahay inuu 40 xinjir yahay inuu 40 waslad yahay macni boroseska ayuu inoo sheegay iyagu maanta ayay ogaadeen marka waxaan idiin hambaliyeynayaa aqoonta diinta maadiga wala hadlayaa aan nasiibka u yeelateen waxaan idin leeyahay qaranka waa ka dhex muuqataa wuu idin sugayaa miisaankiina garta qaranku inuu idin sugayo garta ha isla yaraanina ku fara adayga aqoonta laydin soo baray ee ka kooban maadiyan wa diiniyan labadiiba weeleeya qaranka u gudbiya ha isla yaraanina hasanuugin waxaad haysatid wixii ugu qaansanaa baad haysataa halka dahabka ku jiro inta dahabka la gaadhin dushiisa laga gartaa halka dahabka ku jiro iyo halka shidaalka ku jiro intaan la qodin ayaa la gartaa dushiina ayay ka muuqataa waxaa idinku duuganin in hablayo inamaba waxaan idin leeyahay social media ha iska ilaaliya waa midi laba af leh sidii gudoomiye aanu inoo sheegay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa hadafkaagu ha calaamasanaado hadafkaaga kuma gaadhsiin karo facebooka oo in fara badan share garaysaa youtube share garaysaa in badan kuma gaadhsiin karo haddaan daraasiyey dada maanta intaad social media ha iska xidhid ayaad hadaf aad ku libaatid akhriyaad gumaad gaadhi kartaa intaad social media intaad gelisid waa intaad luus garaysid ama aad luubisid fursad aakhire iyo adduunba aniga ninka weyne kula hadlaya tan kuu sheegaya arrin la yaab leh kuu sheegayaaye aniga gurigayga internet ma laha daataduna ima shaqayso in dhaweyto ayaa qola aanu derisnahay ayaa i qanidhay yar macni baaswarkiiyo wixii bay siiyeen intii qaati billaahi aniga naftaydu waanu saysanaa war qabaarta eeg bay igu leedahay halkan awal koran jira war quraanka eeg quraanka awal ka bilaabi jiray laakiin ka guriga marka soo galo waxa cusub ay igu tidhaahdaa war ninkayga weyna inta laaga intiina arday halkaa fadhido wada qali kara all of you waad wada qali kara saqa waa inta ardayda ah cidda ma weydiinayo inaan ardayda noqon karo war ninkayga weyn waxa halis geliyay kuwa yaryar maxaad u malaynaysaa dhagadhow ku ciyaaraya gelin hore ayuu la kacayaa soo maaha ayamooye qof rabbi tala saarta oo adag mooye markaa ballanteenu waxa weeye
عدو وين الذي هو السوشيال ميديا في attention about that استجل كن حذرا يولك هنا وكيل ينشجها فوق على مصر هذا آخرية أدوبة آخرنا ميلانك لتجيا تذكر قال متجيا أباني هو يدا ميل نود تجيا إذا قلنا إحنا كبرنا هذين المسلمين هاي ميل نود تجينا إلى هاي كبرنا يقول بيدنا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على هذا تنبري سنوي مفسحنا صعب لقصي سبتيو waxaan jeclaan lahaa inta xafladdu inoo socoto habluhu inay sanqadha inaga yareeyaan macallin faysal baan arkayo ku daalayo ilaa maanta dhex marayay marka macallin faysal waxaa la lahaa hablaha aamus waaye qurxaha badan le nimanka dhallinyarada mid ka mid a u dir mambarada kala qortaane waraa xafladda xidhiidhinteeda xafladda xidhiidhinteeda imika waxaa igala wareegi doonaa shacayb cabdi iimaan oo ka mid ah ardayda shacayb baan soo dhaweynaa بسم الله marka hore oo raameedba mahad ilaahay la weyn ee waahidka ayaa mudan dhammaanteedna isagaa leh amaana xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam ayaa dhammaanteed iyadana leh intaa ka bacdi waxaan salaamayaa guddida maamulayaasha ardayda waalidiinta dhammaantoodba waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu intaa ka bacdi xafladdu way socoto intii odayaasha iyo waxgaradka iyo culimada intoodii dee waa qaateeno intii kollay ardayda soo faca soo kacaya intoodii unbaa hadhay lagana sugayaa dee waxay jirtoo dhan iyagoo dad bay soo hor istaagi doonaan ay odhan doonaan bal waxaan ugu soo horraysiinayaa ardaydii sanadka ka baxay iskuulka ah amiin mustafa xuseen oo inoo soo jeedin doona kelmad carabiya soo dhowow baan leeyahay amiin mustafa xuseen الحمد لله ما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح وما علا نجم في السماء وأبهر الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وسلاما طيبين على النبي المطهر صاحب الوجه المنير والجبين الأسهر وعلى آله وصحبه خير أهل وقرن صلاة إلى يوم البعث والمحشر أحييكم بتحية من أعماق قلبي تحية ما بين السماء والأرض تحية أثمن من الدهر وأحلى من العسل تحية أصلها ثابت وفرعها السماء تضيء كضوء الشمس تحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحم بضيوفنا الكرام مديرنا الغالي أساتذتنا الأفاضل وطلابنا الأعزاء وأولياء الأمور وبالجميع ونقول لكم نزلتم أهلا ووضعتم سهلا يا من أتيتم دارنا أيها الحضور طبتم وطاب مشاكم وترواتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويضفي على حفلنا أنسا وسرورا فبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم إن شاء الله اللهم آمين إنه أروع من الجمال رؤية كل هذه الوجوه الناظرة في هذا الصرح القيم والمتألق باجتماعنا على الروح الأسرية والمحبة والألفة أهلا وسهلا بكم يا من بزودتهم جاد الزمان علينا بعدما بخلا أحييتمونا برؤياكم وقد لبست قلوبا من تفاصيل الحب والإخوة فمرحبا بكم يا أحبائي فردا فردا وحياكم الله ألفا ألفا إلى مديرنا الغالي تعجز الحروف أن تكتب ما يحمل قلبي من احترام وتكثر الكلمات التي لا أدري أي منها أبدأ لأشكرك على ما قدمت لنا ولكن وقتي هنا تجعلني أدرك أن الشكر وحده لا يكفي لذا تقبله مني بكل ما تحمله الكلمة فأنت أهل الشكر أما للمعلم فالمعلم مصباح يضيء لنا الطريق
يغذينا بالعلم والمعرفة اللازمة في هذه الحياة لنصبح ما نريد أن نكون، فهو رسول العلم والذي قال به الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات إليك يا من كان له قدم الصدق في ركب العلم والتعليم، إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء، إليك أهدي عبارات الشكر والتقدير. لك منا كل الثناء بعدد قدرات المطر وألوان الزهر على جهودك الثمينة والقيمة من أجل الترقي بمسيرة مدرستنا الغالية. للنجاح أناس يقدرون معناه، وللإبداع أناس يحسدونه. يا من أعطيت للحياة قيمة، يا من غرست التمييز ومعانيه بين جدران ثانويتنا لكي نحلق في سمائها. فأنت من حولت الفشل إلى نجاح باهر، وعلمتنا أن المستحيل يتحقق بالعزم والإصرار. ولو أني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا. سعيتم فكان السعي مشكورا، ولو جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. تعلمنا الكتابة والقراءة، تعلمنا النباهة والنزاهة، تعلمنا أمور الدين حتى نسير ونقتفي نهج الصحابة، وتغرس حب دين الله فينا تجود بعلمها مثل السحاب. فأما للطالب فالنجاح في الدراسة وما يسعى إليه كل طالب مجتهد، ولكل مجتهد نصيب، فبقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب الأولى سهر الليالي. ينال طالب تعبه بالنجاح الذي له فرحة مختلفة عن أي فرحة أخرى، فالنجاح يجزم النجاح. فإذا رغبت في جذب النجاح فاحرص على تحقيق جزء منه، واغتنم الفرص التي تحلق في الأفق. وإذا تعثرت لا تجلس وقم إلى القمم وانطلق إلى المعالي، واحرص على وقتك واستفد منه كل دقيقة، وزود نفسك بنور العلم، وكن نافعا لغيرك كشمعة نيرة في الليالي تنير قلوب الآخرين، ولتحدث هدفك قبل اتخاذ خطوة لتكون ناجحا في حياتك. ولتكن أقوى ما تمتاز به حسن الصلة بالله واستعانته وتوكله. يا طالب العلم باشر الورع وجنب النوم واترك الكسل، داوم على الدرس لا تفارقه، فالعلم في الدرس قام وارتفع. فذو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم. تعلم فإن العلم زين لأهله، وفضل وعنوان لكل المحامد. وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحار الفوائد. ختاما أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلاما على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. waxay noogu xigi doonaa isaguna arday nagula hadli doona afkeena hooyo kelmad Soomaaliya oo inoo soo jeedin doona kulay damala jaalin oo yara jiraayo Soomaalida Carabida way ku yaraadeen waxa uu nagu soo jeedin doona afkeena hooyo soo dhawaan leeyahay Xamse Aadan Maxamed. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد runaaantii aad baan u salaamayaa dhammaan ardayda maamulka marti sharafta aadka u soo agaasimay xafladan aad iyo aadka u meeqaamka sarraysa. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka anigoo leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. run ahaantii hadal badan anigu ma gelayo, waxaan jeclaystay inaan 3 qodob ku soo koobo. qodobka koobaad haddaan u imaado waa qodobka maamulka iyo macallimiinta. maamulka iyo macallimiintu maaha waxay qiimahooda halkan aan ku soo koobi karno. run ahaantii waxaan leeyahay ilaahay ayuunbaa qiimihiina idinka abaalmarin doona. jasaakum allahu khayran wa axsana aljazaa bitawfiiqikum alaclaa ila aljanna. waxaan kelmadda labaad ku bogaadinayaa dhammaan ardayda qalin jebinaysa xafladan sana dugsiyeedka 2017-2018. dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. guusha aad ka gaadheen noloshiina waxaan idin leeyahay kuwii cilmiga barteen ilaahay ku anfaca ilaa heer jaamacadeedna guul ka gaadha. kelmadda saddexaad waxaan u dirayaa ardayda iyagu galay secondary-ga imika form 3 iyo ardayda grade 8.
waxaan leeyahay run ahaantii waxaa maraysaan marxalatun min maraaxili alxayaa waa marxalad ardayga maraya uu garan karo run ahaantii aan looga sheekin jirin waxay leedahay sacbigeeda iyo adaygeeda waxaan idin leeyahay kuwii u dhawaaraadayga ee iyagu ka baxa nolosha adag ee u dhawaaraadayga ilaahay ha idinka dhigo waxaan ku soo koobayaa hadal badan run ahaantii imaan soo diyaargaroobin maamulka iyo marti sharaftana aad baan u wada salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan kaga ciyaareed ilay gabadhi booday maxma dhaanta gariya waxa weeye waa doorkii hawlaha kolay raggu labadaas ay naga soo kooban oo waa ka dhammaadeen kelmad dambe inoo dambaynta doonta mooyaane waxaan ku soo dhawaynayaa inanta u xidhiidhin doonta barnaamijka hawlaha iyo iskudubaridkooda soo dhawaato baan leeyahay waxay noo soo dhawaato يسمع دعاء الخلائق ويجيب يؤنس الوحيد ويفني الشديد ويذهب الوحش عن الغريب يغفر لمن استغفره ويرحم من استرحمه ويصلح المعيب يسر العساء ويمهل البغاء ومن تاب منهم وقبل أصيب يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل ويعفو عن الذي بالعجز يصيب من أطاعه تولاه ومن غفل عنه لا ينساه وله من الرزق نصيب يرزق بلا أسباب ويدخل الجنة بغير حساب ولا فضح ولا تنقيب نحمده تبارك وتعالى ونسأله التنظيم لا حولنا والترتيب ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفساد والإفساد والتخريب ونرجو الأمن والأمان والرضا والرضوان في يوم يسقط الجنين فيه والصغير فيه يشيب ما هي الأنثى وما دورها في المجتمع؟ أنا أنثى وما أدراك ما الأنثى هي رمز القوة والعند والعنفوان والحرية والشجاعة هي مصدر للحياة هي ربيع وقدرة الغيث للأرض القاحلة دور في المجتمع يعد دور الأنثى في المجتمع كبير كبيرا جدا وذا أثر بالغ الوضوح كما أنه دور حساس جدا وأن تحيز دورها واستغلالها واستغلال قدرتها بشكل يفوق قدرتها واستنزافها يقود لضياع المجتمع وتشتتاتها وهدم الأسرة وتطويل بنائها وفيما يلي بيان لأبرز أدوار الأنثى وإسهاماتها في الحياة والمجتمع. الأمومة يعد دور الأمومة أهم أدوار في الحياة الأنثى ودور أساسي في قيام المجتمع والحضارات والأمم فدونه لا يمكن أن يكون لدينا علماء وعظماء يمنحون الحياة التغير ويساهمون في تغيير الواقع تغيرا جذريا بما يفيد الإنسانية كلها الاهتمام تقديم الخدمات وأبناء المجتمع إنها مرحبا بك كثر النجوم الساطعة وكثر الوردود الفائحة التي تفوح بأسى العطور وكثرة ما تكتب الأقلام من الحروف والعبارات فردوس إسماعيل عبد الرحمن فليتفضلي مشكورا وماجورا يا أخت الغالي. الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد تحية المباركة
المحضرة أحب أن أقدم لكم في هذه المناسبة السعيدة اللقاء الجميل موضوعا مهما في جميع جوانب حياة المختلفة، ألا وهو دور الداعية في المجتمع الإسلامي. نعلم أن واقعنا اليوم يحتاج إلى كثير من الجد والفهم ثم الجد والعمل، ذلك أن المتغيرات التي ابتلي الله بهذه الأمة في السنوات الأخيرة، كما نعلم أن الدعوة إلى الله وراثة بالنبوة، والنبوة قامت بالعلم النافع والعمل الصالح. فعلى المرأة الداعية أن تكون قوية في علمها النافع، وأن تكون مستجيبة لربها في عملها الصالح. والعمل الصالح والقنوت التي وصف الله به المؤمنات فالصالحات القانتات، والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وللمرأة دور مهم في حياة المجتمع، ولهذا يقال المرأة الداعية هي الأساس، وعليها اليوم ما ليس على غيرها، وعليها اليوم ما ليس على غيرها. أراكم أن تستشعروا أهمية موضوعي، وختاما أنا داعية وأكمل دوري في المجتمع. هي داعية وتستمر دورها في المجتمع، ما شاء الله. مرحبا مع كل شروق الشمس وغروبها، مرحبا عدد النجوم السماء اللامعة في الأفق، مرحبا حين تتلاطم أمواج البحر، مرحبا عند سقوط قطرات الندى مع الذهب. الطالبة آسيا محمد ضرار، فليتفضلي مشكورا. بسم الله، الحمد لله رب العالمين الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعلم يدرس ويربي الأطفال، المعلم يدرس ويوجه الأولاد، المعلم يدرس ويشير الشباب، المعلم صادق، المعلم كريم، المعلم وفي، المعلم مصادق فيصدق بأقواله، فلا محالة ولا شك بأن أقواله صدق تماما، وبأفعاله دليل منه بهذا. المعلم كريم فينفق علمه وكل مهاراته لطالبه، وما تنفقه أنت يا طالب العلم لا تكافئه ما ينفقك المعلم. المعلم وفي فيوعد الطالب فيوفي بلا تكلم. المعلم هو من علم الرئيس والوزير، المعلم هو من علم الرئيس والوزير وكل المجتمع. إذا فهو المعلم، فهو قائد اليوم. المعلم هو التدريس هو مهنة الأنبياء، فالعلماء ورثة الأنبياء. المعلم شمعة تحترق لتضيء الطالب الطريق. أخيرا، أنا أنثى مسلمة معلمة وأكتمل دوري في المجتمع. هي معلمة وتكتمل دورها في المجتمع، ما شاء الله. مرحبا مع كل شروق الشمس وغروبها، مرحبا عدد النجوم السماء وجمالها، مرحبا حين تتراكم الأمواج البحر بشواطئها، مرحبا عند سقوط قطرات الندى مع الوفد وازدهارها. الطالبة سامية سعيد موسى، فلتتفضلي مشكورا. الحمد لله الملك القدوس الذي أعطى كل شيء خلقه على الكمال وعلى التمام، رفع السماء إلى عمد والأرض وضعها للأنام، فيها جنات معروشات وغير معروشات، والنخل ذات الأكمام. أما بعد، أيها الضيوف الكرام، أشرقت الأنوار بقدومكم، وتفتق النهر لإضراراتكم، وغطت الطيور إليكم، فيا أهلا وسهلا.
يا مدير المحترم ويا سادتي الغاليين، أزف لكم تحية معطرة ندية ونبعث دائما أحلى سلامنا والأشواق لضلالات البهية. إليكم الحب والاحترام والتقدير فيحفظكم الله أينما كنتم. أما بعد، أيها الضيوف الكرام ويا مدير الغالي ويا سادتي الغاليين وطلاب المحترمين، اليوم نتناول موضوع يدور حول المرأة الدكتورة في المجتمع. مو نتكلم مرأة ثانية، نتكلم المرأة الدكتورة، يعني مجتمعنا يفهم المرأة الدكتورة فهما مو صحيح. واليوم أبين لكم المرأة الدكتورة كم أهمية في مجتمعنا. السلبيات المترتبة على تواجد المرأة في المجال الطبي، حيث أنه على مدار الأزمان والأكوان كان لزاما ولا بد وجود المرأة في المجال الطبي، كونها طبيبة أو ممرضة أو أخصائية، حيث أنه من الضروري وجودها كونها تمثل القسم المكمل للرجل والركيزة الأساسية لبناء المجتمع المتحضر والواعي، وهي من المقومات الأساسية للنهوض بالحضارات والرقي بالمجتمعات. على سبيل المثال، المرض لا يستثنى رجلا أو امرأة، كما أن الطب لا يستثنى رجلا أو امرأة، وأن أكثر الوبائيات في مجتمعنا تصيب بكثرة النساء أكثر من الرجال، كونهم أضعف من الرجال. على سبيل المثال، في مجتمعنا الإسلامي أكثر النساء يرتادون عيادات طبيبات لأنهم يجدون عندهم راحة نفسية أكثر من الطبيب، لكون المرأة تتصف بصفة الخجل سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، فتركيبتها النفسية تخجل من وجود الرجل سواء كان طبيبا أو غير ذلك. على سبيل المثال، هناك إصابات مثل الجهاز الخارجي أو الجهاز التناسلي، أو في حالات الولادة أو العمليات، أو هناك بعض العقديات التي لا يمكن تشرحها المرأة في الطبيب، مثل حالات الفحص الصغيرة أو الكشف العورة. لا بد من وجود الطبيبة في مجتمعنا، لأن وجود الطبيبة يكمل وجود الطبيب، كذلك وجود الطبيب مكمل لوجود الطبيبة. ولا ننسى ولا نقلل أهمية الطبيب ولا نستعبد منه، لكن لا بد وجود الطبيبة في مجتمعنا، لأن المرأة ترتاح في عيادات طبيبات. وأختم من كلامي، الأهم وجود الطبيبة في مجتمعنا، إذا كانت ممرضة أو أخصائية أو طبيبة أو أي شيء ثاني. وأختم من كلامي، أنا دكتورة وأكتمل دوري في المجتمع إن شاء الله. هي دكتورة وتكتمل دورها في المجتمع ما شاء الله. حللت أهلا ووطنت سهلا، أهلا بك بين إخواتك وأخواتك، إن شاء الله تسعدنا معك، وأتمنى أن تفيدنا بمشاركتك وإبداعاتك السعداء بوجود معنا. حياك الله. الطالبة الثانية شامع أحمد، فليتفضلي مشكورة. الحمد لله الذي لا إله إلا هو، الذي يستعين به وأعينه، والذي يطلب منه الهدايا فيهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية أبدأ موضوعي دور الأم في المجتمع. للأم مكانة عظيمة سواء في اعتبارات اجتماعية أو دينية، هي أساس المجتمع، وهي صاحب الدور الأعمق في بناء جيل المستقبل، تسبق والديها من لحظة وجاء تعبر منها. الأم كلمة صادقة قوية تنطق بها في جميع كائنات الحي، طلب منها الحب والحنان العظيم الذي فضل الله قلوب أمهاتنا. اللهم احفظهم وأكرمهم وأحبب أمهاتنا، حنونات يسهرون لأجلنا
ويصنعون كل شيء لكي يرضينا. اللهم احفظهم من عاش منهم واكرمهم، اللهم احفظهم من عاش منهم وارحمهم من مات وتقبلهم في فسيح جنات. ختاما، هذه الدكتورة ومعلمة وداعية كلهم يصلون هذه المنزلة بسبب أمهاتهم. أنا الأم واستمر في دور المجتمع. هي الأمة وتستمر دورها في المجتمع. بارك الله فيك. والحال أرحب أخواتنا الصغيرات فرقة الأناشيد سودة عبدي بعلول وصديقتها رحمة أحمد كامل، فلتفضلوا مشكورا ومأجورا. يا ورود الشتاء يا جميع الأمل اشهدوا هذا الصباح
wanaagsan waa la sheegaa alaabtana lama ilaawo waxaan maanta halkan uga mahadnaqaya ilaahay kadibna macallimiintii wax la soo bartay aniga oo leh macallin marnaba ma ilaawi doono dadaalkii iyo waanooyinkii qaaliga ahaa ee aadna siin jirteen hadalkayga tiraabka ma koobi karo baraantixi gabayaa ku cabiro maamuus haddii ruux la siin magacna loo yeelay mansab iyo hadday darajo sare cidi mulkiye hayso qofka mudan madiix loo taxo lagu mafsuud siiyo inuu yahay midkii macallinaan muran ka taagnayne miisaanka uu weyn yahaan maragba doonayne maankii wuxuu korinayaa maskaxda hube malaayiin qof buu soo baxshaa oo muraayad ahe masagadu waxay qud u tahay mool qawaxyahae aqoontana nafta maashaa lagu macsuumaye cilmi baa ka soo maxda oo lagu mateertaaye misbax weeye nuur faafiyo ciidina moogayne madaxdiiyo raggaa tala qabtay xilalka loo meersho isagaa duruustii macaan hore uu muudsiiyey waa maayad biyihii macaan loo miciinsada ee maandeeqsideedii ayuu maanka koriyaaye martidiisa wuu soorayaa waa markhaatila eh inuu maganta daadihiya qaanuunku waa u maragay maamiyaad ogeyn kadib mudanka weeyaane abaabku mutaystaan marnaba cidi malaynayne waa lagama maarmaan bulshadu ay u muhataaye marka weeye lagu dhaafo badan muujada kacaye kolka mayigu meel uu ka dawaamo mahiigaanku macaluulku wii liitay baa khayrun quusamee casharadu markuu baro marshuu ugu madiixaaye madawiyo qofkii jaahilnimo meel mugdiyo joogay marin iyo dariiquu u furi wuu mashxaradaaye masaafkiisu waa shamac baxo mariyo ruuxdiisa dadka kalena waxa uu muujiyo muusin baahiye mas-uuliyad laxaalaa ku raran maamul iyo howle manficiisa kuma koobi karo meeliskii gabaye ardayahay balmalabkaa jaqo mariyo dhuuntiina maalmihiisa kii daayacay muruga taalaaye mukhaabigu dharaar buu gartaa marin habaabaaye wakhtigaagiyuu madhan adoo moogan idilkiise yaraantiisa ruuxii mintida weeraradaas daala weynida inuu mahadiyaa waa muwaafaqade mirirkaa dhalaan tahay ka bogo mirir laguu dhigayo winankaa wax lagu daalacdaa lagu muraajaaye darsi shalayto uu kuu marshuu maanta sugayaaye inaad wada micnaysaa habboon adoonka maagayne maskuun baa ninkii diin malgon mici ka dhowrayne muran iyo adoon buuq la iman muujisiga fiican meel mari dhawaaquu ku faro maankuyuu jabine majiiraha uu jeexiya marahalkuu leeyahay macaasida intaad haysa bay kaa masaxasaaye mawlaha ilaahay ka baqa maxamedkii raaca maamuusa barihiina oo kaga mafsuusiiya